labaatan jir xabsiga magaalada Oslo ugu jiro in ka badan 13 haween ah oo uu dhibaateeyay kuwa oo isugu daray jirdil, dhac, kufsi iyo xabsi ayaa lagu soo waramayaa in ay hadda dacwadiintiisu ka socoto magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway halkaasoo xabsiga lagu hayo. 20 jirkan ayaa hore waxa uu ugu eedeysanaa faldambiyeedyo ka dhan ah haweenka oo uu geystay intii u dhaxaysay bishii December 2025 ilaa iyo bishii Abriil ee 2026 aynu ku jirno. waxaana hadda lagu soo waramayaa in kiisaska dacwadda loo haysto wiilkan 20 jirka ah ay sii cagacageynayaan ilaa iyo 13 kiis oo uu u geystay dumar kala duwan oo ku nool guud ahaan dalka Norway, gaar ahaan deegaanada ku xiran magaalada caasimadda ah ee Oslo. dacwadaha hadda lagu soo kordhiyay ninkan ayaa waxaa ka mid ah haweeney 50 jir ah oo uu ku dhibaateeyay degmada Bremen 9 Abriil iyo sidoo kale mid kale oo uu ku dhibaateeyay 15 Abriil isla deegaanada. ninkan ayaa lagu soo waramayaa in uu 4 toddobaad ku xirnaa xabsiga magaalada Oslo, waxa ayna hadda booliis sida uu ku waramayo qareenka booliiska Erland Jensen maalinimada Isniinta ah in loo kordhiyo 4 toddobaad oo kale si ay kiiska baaritaano xooggan ugu sameeyaan. qareenka booliiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano xooggan oo ku saabsan kiisaska dambiyada ee uu geystay 20 jirkan kuwa oo uu kula dhaqaaqay haween kala duwan. waxa uuna intaa ku daray in hadda 2 khabiir oo dhanka cilmi nafsiga ah ee dhanka maskaxda ay u xilsaareen kuwa oo qiimeynaya xaaladda eedeysanaha. wuxuuna sheegay in ay rajeynayaan in ay ka gungaaraan maskaxda ninkan waxa ka dhex guuxaya maadaama 13 haween ah uu dhibaateyn xooggan oo isugu jirta jirdil, cagajuglayn, dhibaateyn, afduub iyo kufsiga uu u geystay. 13 haweenka ee uu ninkan 20 jirka dhibaateeyay ayaa lagu soo waramayaa in ay da'doodu u dhaxayso 26 jir ilaa iyo 93 jir, taa oo fajiciso ama kaag iyo layaab dad badanba ku noqotay. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.